hadae ho qalinka ku hagaaji buuga ho qalinka ku hagaaji buuga badana ho tilmaantay qaybtan waa qaybta laatiiniga hadday tahay qaybta carabiga iyo qaybta laatiinigaba intuba waxay u baahan yihiin marka ugu horeysa in laga bilaabo alif beetada qofkan alifka fahmin isku xirkii waa ku adkaanayaa yoolkana ma gaarayo marka waxa wanaagsan qofka inuu ka bilaabo xuruuftii hadday carabi tahayna alif ilaa iyo ya hadday tahayna laatiini sidoo kale xuruuftaas inuu qaato oo laatiiniga lagu qaadanaya e ilaa iyo z marka waan bilaabaynaa waxaan ka bilaabaynaa bata ja ma ahan laatiinigaan ka dhigaynaa laatiinigana sababtaan u dooranayna waxa ay tahay maadaama laga yaabaa qoraal ahaan aad u isticmaali doontid xarafkan oo kale waa z kan waa v kanna waa p kuwaana markaa ku jira qaab dhigista markaa waa in markaa tusaale ahaan tan waxay noqon doontaa waa arki doonaa haddii ilaahaydmo saasaa loo qoraa laatiiniga haddaadan arag kuwan marka hadhowti way kugu adkaanayaan marka insha allah waxaan dooranaynaa laatiiniga inaan ku qaadanno oo a b c ah waayahay xaraf a baan ka bilaabaynaa a'da waxay u samaysan tahay qaab ukun ah qayb kale ayaa jirto oo u samaysan sida dayaxa oo kale ama wareeg buuxa loo samaynayo tusaale xaraf a baan qorayaa labadan isma laha wareegan wuxuu u samaysan yahay waa wareeg buuxa sida dayaxii oo kale tanina wax yar waxaa ku yaallo dadab qallooca ku jiro ama sida ukunta ayay u samaysan tahay marka tani waa midda furfurka ah weeye tanina isku darkii qaabka xuruuftii la isku xirxirayo waxaan qaadanaynaa marka tanaan socodsiinaynaa haddii ilaahay idmo a'da markaan qorayo wareegan haddaan qoro waa khalad waa inaan sameeyaa wareegga ukunta ah waa inaan ka dhigaa xaraf a tanaan soo qaadanayaa waxaan ka bilaabayaa sadarka hoostiisaan ka bilaabayaa halkaas tusaale ahaan horta intaanan guda galin dee waxaan isiri wax badan baan wadnay oo waxaan islahaa dee dadku way fahamsan yihiin waxaa dhici karta dad aan fahamsanayn inay jiraan leemankan wax yar tusaale haddii aan ka dhiibo xuruuftii waxaa loo qaybinayaa 3 qaybood oo qofka bani aadanka miisaalkiisa oo kale madaxa caloosha iyo lug qaybtan sare ee ama diilintan cas waxay noqonaysaa madaxan ka soo qaadanaynaa qaybtana waxay noqonaysaa maxay dhexdii oo calooshii ah qaybtana waxay noqonaysaa lug oo qaybta hoose ah xuruuftii markaa waxaan u qaybinaynaa 3 madaxley iyo uur ku jirto iyo lug oo lugaley ah saddexdaasaan markaa xuruuftay u qaybsamaysaa hadda buuggani waxaa loogu qaybtan oo mid walba hadda ilaa 3 qaybood bay hadda ay u qorantaa qaybtiiba waxaa loogu talagalay koors ahaan 2 bilood buuggan waxaa loogu talagalay in bil lagu qaato bisha kalena buugga caadiga ah sida caadiga wax loogu qorto ka kalena markaa bisha labaad oo koorska uu ku dhamaado baa loogu talagalay marka kan waxa weeye waxaan loogu talagalay in gacanta markaa ay la qabsato uur ku jirtada a baa ka mid ah c baa ka mid ah ilaa iyo waxaad gaarsiisaa inta la midka m e n iyo o iyo kuwaas kuwa kor u baxaya ba'da ha'da ka'da la'da kuwaasna madax qa iyo ya iyo kuwa hoos u dagay ga iyana waxay noqonayaan markaa lug baa loo nisbeeyay kuwaasna waayahay xuruuftii markaa leemanka markaa waa sidaa
xaraf a markaan qorayo oo koob bartaan ka bilaabaya sadarka hoostiisaan ka bilaabaya tusaale sadarka hoostiisaan ka bilaabaya sababtaan uga bilaabayana waxay tahay halkaasaan ku arki doonaa insha Allah sadarka haddaan ka bilaabo guudkiisa iyo sadarka hoostiisa haddaan ka bilaabo farqiga muxuu yahay aan aragna markaa kan waxaan ka bilaabay sadarka hoostiisaan ka bilaabay xaraf e ama xaraf a haddaan af soomaaliyeyno kanna waxaan ka bilaabay sadarka xaraf a halkaa waxaa ka maqan tan waxaa halkaa ka muuqata meel yar oo bannaanaa ka muuqata iyo far yar halkan wax ma laha halkaas wax ma laha fartiibaa ka muuqan meel yar oo bannaan oo tan oo kale ka muuqanin marka tan waxaan leenahay waa laga fiican yahay kuma qurxoona tan baa saxan waxaa halkaas laga rabaa inay ka muuqato maxay far iyo meel yar oo bannaan tusaale labaad aan ku celiyo halkaasaan ka bilaabayaa sadarka hoostiisa halkaa waxaa ka soo baxday far iyo meel yar oo bannaan ah xaraf a waa in tani ay soo baxdaa markaa meeshaa bannaan waxayna ku muuqan kartaa meeshaa bannaan oo fartuna ay ku muuqan kartaa adigoo marka ugu horeysaba ka bilaabo sadarka hoostiisa xaraf e xaraf ba ama b bida waxay u samaysan tahay wax yar qallooc baa ku jira tusaale ushii wax yar baan qalloociyey ul toosan ma ahan ma toosna waa sidaa wax yar qallooca ku jiro dhanka kalena ka soo qallooci oo toos ha u soo wadin ma toosna markaa wax yar sida tan oo kale wareeg la mida u sameey halkaana ka soo wareeg duub soo duub socodsii leenkaa keen xaraf walbana wuxuu wataa fartaas waxaa loogu talagalay xarafka ka horeeya inay laisku xiro soo wareeji far yar u bixi b halkaa maxay noqotay xagal waa in ay xagal ka yeeltaa bartaas hadday wareeg ay noqoto waa khalad xaraf b fartaa u bixi b kan iyo kan waa isku mid markaad socodsiisid soo wad halkaa isla markiiba ha ka laabin sababtoo ah halkaasaa weynaanayso waa inaad bartaa u soo dhawaysaa halkaa qiyaas aan ku celiyo xaraf b soo wad u dhaweey halkaasaan u soo dhaweeyey xaraf b sida iyo eedu waa isku mid way iska ag dhow yihiin tusaale xaraf a baan qoray xaraf a xuruufa iyagaas furfuraya a haddaan intaa ku daro da bay noqotay haddaan hoos soo deji ku laabto tusaalahaan waa ku soo laabto saasaan idhi ga bay noqotay halkaasaan ka laabo saasaan idhi qa bay noqotay waan ka wada masaxay sidaasaan idhi o bay noqotay sidaasaan idhi si bay noqotay marka a'dii intaas isku bedelaysaa xaraf a marka hadday ku saxanto xaraf badan baa ku saxmayo oo aan ku dhibaynin xaraf si aan ka gudubno marka hal mar xaraf si sadarka hoostiisa ka bilaab sida eedoo kale gadaalu soo deji isla markiiba laab oo qaybtaan dambe waxay kor u qaad sadarka ha raacinin sidan oo kale sadarka ha raacinin waa khalad waa inaad waxay kor u qaadaa si daada waxaan idhi waxay la mid tahay un aadii haddaan saa iraado waa a haddaan saa iraadana waa da xaraf d xaraf ee qor soo deji ku noqo xaraf ee haddaan halkaa ku jooji waa ee kor baan u qaada waan ku soo laabtay d bay noqotay
waayahay waxaan iri aadu waxay ka saxaysaa xuruufo badan tusaale xaraf a aan ku celi mar labaad waa xaraf a kor baan u qaaday maxay noqotay da hoos baan u soo dejiyay maxay noqotay ga dhankan aan u soo duubay saasaan iri maxay noqotay qa intaasaan ka masaxay aadii ku soo celi fartaa ka bixi fartaana ka baabi'i waxay noqotay haddaan taabsiyo oon saa iraahdo waa o intaasaan ka masaxay waxay noqotay c intaa yarta haddaan ku daran waxay noqonaysaa xaraf e efta bilaabashada waa sida xaraf ba oo kale tusaale xaraf ba markaan qorayo waxay ahayd wareeg yar sida qaansada oo kale u samaysan tahay ba ma tahay waan soo wareejinayaa hadday fa tahay meeshaa ma furna qayb kale ayaa jirto oo la furayo qaybtaan ma furno qaybta sare way daboolan tahay qaybta hoose ayaa furan qayb kale ayaa jirto oo sidaa u samaysan qaybta sare iyo qaybta hooseba la isla furayo f sida baada u qor laakiin halkaa ka soo duubin ee ku soo noqo ilaa iyo halkaas ayadu markaa ayada kaligeed baa ka jirto ee ka bilow ilaa izad ayada kali ayaa ka jirto madax iyo lug wax isla haysta inta ka soo hartay inay dhexda ku jiraan oo ku jirta noqdaan ama madax ama lug ama faadi madax iyo lug bay isku haysataa ayadu hoos u soo wad marka hoos keen xagal iyo calool yar u sameey f hal mar aan ku celiyo wareeg yar ka dhig ku soo noqo si toos u soo wad qalqaloocin ushan si toos bay u soo dagaysaa toos u soo deji halkaasina waa waxay noqonaysaa maxay xagal ka dhig laba dhexdooda waa halka qiyaas laba dhexdooda wax gurud oo kale ka dhig bartaasna waxay noqonaysaa tusaale ahaan markay saa tahay usha dheer waa inay meesha oodaas waa inay soo dhex martaa hadday markaa bannaanka ay ka marto waa khalad waa inay bartanka ay ku beegantaa xaraf ga baan ku daraynaa sababtoo ah aadu hadday saxan tahay gaaduna way saxmaysaa xaraf ga maxaan qorayaa marka hore xaraf e baan qorayaa xaraf e hoos u soo deji calool ha u samayni sida tan oo kale saa calool mal halkaas ma furna isla raati ku celi g هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته